بسم الله الرحمن الرحيم شرف bay ii tahay in aan ka qayb galo xafladan sababtu tahay waxaan ku jiray aasayaashii ahlu sunnah wal jamaa 42 ugu horeysay xamurra tagtay ragii waxaan ahaa u gudbiyay degmada Xaraale ka bacdina maanta inay tamira dhasho ay u xuubsiibato qarannimo aniga dareen gooniyahay ii leedahay bishakhsiyan anigu maamul goboleedka fikirka aan ka qabo waxa weeye in shacabka Soomaaliyeed lagu kala qaybinayo ama lagu kala xadideynayo balse waxaan u arkaa heshiiskan inay tahay nabad ifafaale waxaan halkaan ugu hambalyeeynayaa safartii dheereed oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha iyaga uu ku soo maray gobolada Soomaaliyeed waxay tahay astaantii bilowgii dib u heshiisiinta iyo nabadeynta dadka walaalaha wada dhashay waxay noqotay 27 sano tilaabadii ugu horeysay waxay ahayd isdhaxgalkii iyo bulshadii shacabka Soomaaliyeed waxa la ogaaday shacabka Soomaaliyeed in ay midnimo u baahi qabaan waxa maanta Ilaahay mahadiisa leader ama hogaamiye Ilaahay inuu siiyay midnimada dareenkooda waxa weeye la qaba waxaan leeyahay hambaliya shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu soo jeediyo maamulka maanta halkaan ku madoobay ee galmudug iyo ahlu sunnah wal jamaa waxaan leeyahay nabad baa naas la nuuga leh walaalayaal waa bilow tan sidii madaxweynaha iyaga qaranku u sheegay hal raadiyo degmooyinka maqan hal raadiyo dadka maqan hal gooba hal isku keeno hana laga mira dhaliyo hana socoto waxaan leeyahay guul ahlu sunnah wal jamaa waxaan leeyahay guul waxa weeye raggii shuhadadii u dhimatayna Allah u naxariisto intii waxa weeye mira dhalisayna waxaan leeyahay hambalyo inta ka maqanna waxaan leeyahay haddii hadafkiinu uu ahaa cadkaasoo ama ku cunay ama ku ciideeyeyna hadda meesha waa ka maqantiin haddii kalena lagu dhisayay hadafku uu ahaa shabaabka in laga xoreeyo dalka iyo dadka hadda waxaan leeyahay waxa weeye waa bilow fiican maantay waxaan xasuustaa 2009kii markii halganku ugu kululaa ayaan waxaan xasuustaa fiisooyin 57 xabaan waxaan ka helay Ingiriiska in ahlu sunna lagu keeno scholarship markaan qaybiyay ayaa nin wuxuu yiri gobolada dhaxaanu ka nimide maxaa diigayga u qaybinaysaa ma qaybinaya waxayna dhimashadan qaybinaya maanta waxa soo dhawaatay gumaadkii ama gumaabsigii shabaab waxaana soo dhawaatay guushii shacabka Soomaaliyeed waxaana leeyahay hambalyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ayaa laf dhabar u ah waxaan leeyahay noolaada ha jiro ha joogo waxaan u maleynayaa maanta halkaan waxa ka dhacday munaasabad aad u qiimo badan munaasabad in muddo ah la sugaayay laga soo wada shaqeeyay laga soo bilaabo madaxweynuhu maalintii oo intaan la caleema saarin ka hor ilaa maanta runtii madaxweynaha federaalka ah oo juhud badan geliyay dawladda Djibouti ay gacan xoog badan ku lahayd dadka siyaasiyiinta ah deegaanka ama galmudug ama ka tirsanaa dawlad goboleedkii gobolada dhexe ama ahlu sunnah ay ka tirsanaayeen xoog badan ayaa runtii arrintan la isugu keenay inay maanta hirgasho oo heerkan ay soo gaarto wax Ilaahay looga mahadiyo waaye kadibna intii xoogga iyo juhdiga gelisanay looga mahad celiyo waaye dadaalkaani runtii si guud madaxweynaha booqashu ka soo bilaabay Puntland galmudug oo aan weli ka dhamaanin oo ku waday dhammaantood marka la fiiriyo waxay ahayd dadaal iyo safar taageeraya dawladnimadii taageeraya safar wuxuu ahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wadajirkeeda iyo nabadda gacan siinayo ahaa aad baan runtii ugu faraxsanahay inay maanta munaasabaddan halkan ka dhacdo reer galmudug qiimo gaar ah u leedahay waa munaasabad xooggoodii iyo awooddoodii lagu mideeyay waa munaasabad ay si taariikhdu ay sheegi doonto aad loo xusuusan doono munaasabad waxa weeyaan dadkan iyo deegaankan runtii marka la fiirsho dib u dhac badan oo ku jiro kasoo kabi karta inay hore u socdaan ka shaqeyn karta aadan rajaynaynaa insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu barakeeyo waxa yar ee ka dhiman ee aan weli dhamaystirmin Ilaahay inuu noo dhamaystiraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa dhammaan waa uga mahad celinaynaa inta halkan timid aniga magaaladan Dhuusamareeb xildhibaankeedii baan ahay marka dhammaan waan ku soo dhaweynaynaa dadka yimid dhammaan waan u mahad celinaynaa madaxweynuhu ugu horeeyo ilaa qofka ugu dambeeya dad ka soo qayb galay munaasabadan dawlad goboleedyada gobolka Banaadir waxgaradka siyaasiyiinta xildhibaanada labada gole dhammaantood shukran aan leenahay aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullah maanta waxa runtii farxad weyn iyo reyn ayaan ku joognaa halkan taariikh cusub ka bilaabatay gobolkan waxaan rabaa horta halkan marka ugu horeysa inaan mahadnaq u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
oo suuro geliyey dib u heshiisiintan isaga iyo tiimkii la jiray oo dhan nooc walboo yihiin wixii la qabtay iyo dadaalkii la qabtay in la soo gaarsiiyey marxaladdan waxaa laga soo maray dhib badan marka isaga iyo intii kala shaqaysaba waa mahad celinaynaa teeda kale maanta maalin kale oo taariikh lahay ahayd oo hay-adihii adduunka o dhan oo united nationka ugu horreeya oo cid walba ay timid oo ay aqoonsatay galmudug aqoonsigaas ka bacdi waxaan hadda kadib noo yimi implementation waxa dhaha in arrintii la hirgeliyo la qabto ciddii ka maqan lagu soo daro waxaan rabay isla markaas halkan aan uga mahad celiyo walaalaheen reer Cadaado oo runtii dadaal badan sameeyey muddadii aanay joogeen amni badanna sugay aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inay ku soo biiraan arrimahan mataqaanaa ii sheegay hadda socda aysan ka harin walaalahood tan kale Soomaaliya oo dhan baan ku mahadsan cid walba maanta waa loo dhammaa runtii cid walba oo Soomaaliya oo timid waa u mahadnaqaynaa yacni waa waajibna waa saaran waa arrin qaran oo hirgashay intaasaan aanu dhihi lahaa maanta waxaa farxad noo ah inaan goobjoog u noqonno dhaqangelinta midnimada beesha iyo bahda iyo deegaanka galmudug heshiis la soo saxiixay bishii Oktoobar laakiin shaqadiisu muddo ay socotay dadka galmudugna ay dareemayeen kala dhantaalnaan awooddooda cududooda horumarkooda iyo kala qaybsanaan xooggan inay maanta soo gabagabowdo iyadoo madaxdii dalka iyo beeshii caalamka iyo dadka madaxweynayaashii gobolladu ay markhaati ka yihiin runtii aad baan ugu faraxsannahay waxayna tani markhaatigaasi wuxuu ka sii markhaati kacayaa dadkaas tirada badan oo yimid in mas-uuliyad xooggani ay fuushay madaxda galmudug hadda mas-uuliyad xooggan oo ka weyn tii hore inay fuushan tahay dalkan infrastructure ma jiro kaabayaashii dhaqaaluhu ma jiraan colaado iyo abaaraa la degay waxaa looga baahan yahay adeegyo xaflado la dhigo maanta u dambaysaan rajaynayaa marka laga reebo in tabashada reer Cadaado la xalliyo oo ahayd xuduntii iyo saldhiggii maamulkan galmudug oo aan rajaynayo xalayna aan ku soo dhafarnay xildhibaano kalena meeshii ay joogaan birrina lagu noqon doono in la soo dhammeeyaan rajaynaynaa markay dhammaato wixii ka dambeeya waxaa loo joogaa adeeggii looga baahnaa dawlad goboleedkan in madaxdiisu ay la timaado dalka tirada badan ee al-shabaab ku hayaan in gacanta lagu soo dhigo in la soo wada dego deegaamadii la wada deganaa in ceelal waxbarasho iyo infrastructurekii deked iyo ayraboorro inay helaan in dadka jaaliyadda tirada badan ee galmudug ee lacagta badan haysatay dhaqaalaha badan haysatay xamar maalgashatay nairobi maalgashatay adduunyada meelo badan ka maalgashatay inay dib ugu soo noqoto deegaankoodii oo ay maalgashadaan si ay ula tartamaan ugu yaraan deegaamada kale oo lafaca ah waxaan rajaynaynaa marka galmudug iyo dadkeedaba guul annagu xildhibaanadii dadka matalayaan nahay marka ay faraxsan yihiin waa la farxaynaa marka ay murugaysan yihiinna waa ku matalaynaa murugadaas ee adahaan ka tirsannahay waxaan marka hadda waa farxade waxaan rajaynaynaa guul iyo barwaaqaan u rajaynaynaa iyo midnimo taama waxaana ka mahad celinaynaa intii timid oo dhan oo madaxweynuhu u horreeyo oo madaxdii kale beesha caalamku u horreeyaan iyo maamul goboleedyada nagu karaameeyey maanta inay markhaati lagana noqdaan ma sahlana inay wakhtigoodo dhan soo jiraan dadka reer galmudugna waxaan leennahay maanta wixii ka dambeeya qaylada laydinka maqlaahi ceeb weyn weeye waxaan rajaynaynaa hormuudkii Soomaaliya ay ahaan jireena dowrkoodii inay soo ceshan doonaan heshiiskan runtii dee waa heshiis muddo soo socday 2015 buu soo bilowday raadintiisu madaxweynaha reer galmudug cabdikariin guuleed ayaa soo bilaabay waa soo socotay dawladdii xasan sheekh waxay ku timid dawladdan cusub ee hadda farmaajo hogaaminayo way dhammaystireen dowr fiican bay ku lahaayeen sidoo kale dawladdii ka horraysana dowr fiican bay ku lahayd marka wax sida loo dhammaystiray ayuu heshiisku meel hore ka yimid dhammaystir buu ahaa kaalin fiicanna way ka ciyaareen oo runtii dee waa kaalintaan hadda beesha caalamka inay soo aaminaan oo yimaadaan oo markhaati ka noqdaan waxa sabab u ahaa dee madaxda dalka sabab u ahayd munaasabadan sharafta badan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maamul goboleed kasta uu yimid madaxweynahooda ay yimaadeen madaxweynaha federaalka uu yimid aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda meeshaan isugu timid
annaguna calanka maanta siyaaday ee laga muday caasimadii gobolka Dhuusamareeb aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan ka soo gurbannay wax aan kala reebanno male gudoomiyihii degmada Kaalkacyo ayaan ahay anigu ee gobolka Mudug marka baabur baa ka soo daba qaadanay waqtigii soo socday waxaan inta u soo malayna gaajada iyo haraadka ay noo hayaana waa jacayl naga haya siyaadada aasiyana haddii aan galmudug nahay meel kasta meel yar baa hadda naga xaniman ayada waan gaaraynaa insha Allah sidaasaan malaynaynaa aad iyo aad bay madaxdeena aan soo dhaweynay aad iyo aad bay noogu mahadsan yihiin waa ku mahadnaqaynaa waa hambalyaan leenahay waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meeshaan UN iyo meel kasta la isaga yimid madaxdii dhameed ay isku timid aad iyo aad baan ugu faraxsanahay